السلام عليكم أصحابتان جعلنا هاي كسو دواد برنامج كيني قيسوينكا نين تاجر أها أو حبينك أها طبقات سارة دالك الروشكا أيا داقاد قوري سكا أركي نين قوري لآن أي أرى عضيطر لآن برفك كوركي سساران انتو كياوي يو هالك أوفاديو أيو أسو دغي أو عجل عسان كويري محان كو قبتا نينكي فقيرك أها ayaa ninkii taajirka ahaa ka codsaday korka dhaxanta inuu u keeno. Taajirkii oo aad uga xum rafaadka iyo silaca uu ku nool yahay ninkan faqiirka ah ayaa u ballan qaaday inuu u keeni doono koor weyn iyo waliba casho culus oo degdeg ah. Nasiib darro, dhowr telefoon oo u soo dhacay darteed ninkii taajirka ahaa wuu halmaamay ninkii faqiirka ahaa. markuu waagi baryay ayuu arkay ninkii faqriga ahaa oo dhintay, warqadna ay ag taalo, waxaana ku qorneyd hadalladan warqadii: inta aadan ii sameynin ballanqaadka waxaan ahaa nin adkaysi u leh gaajada iyo dhaxanta, waxaanse tabar dhigay oo dhaxanta iyo gaajada jirkayga u nuglaaday ballanqaadkii beenta ahaa ee aad ii samaysay. waana sababta soo dejisay geeridayda. fadlan ha ii oynin geeridayda kadib, waayo waxaa jirtay mar aad wax ii qaban kartay, maantase waxba iima gashid oo waxaan ku biiray duni kale. ujeedka ballanqaadka beenta ah wuxuu sababi karaa saameyn fog oo qofka bini'aadanka ah ku yeelato noloshiisa. haddaba ka fogow inaad ballanqaad been ah u samayso qofka, oo sabab ha u noqonin geerida ama waalida qofka islaamka. hana dhaawicin qalbiga aadamiga ee daciifka ah. halkaasna waxay nooga qisadeena maanta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir kanaalada Naciim Studio iyo Daarul Khayr Media. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.